اللاعب المصري محمد صلاح تعرض لصافرات الاستهجان والمضايقة ciyaartooyga Misriga من ah جانب جماهير ee u فريقه ciyaaray jiray السابق Fiorentina الذي كان Mohamed يلعب Salah لصالحه قبل أن ayaa ينتقل ciyaarta إلى نادي روما. wuxuu la kulmay fooli fara badan روما وظل taageerayaashii يشارك Fiorentina مع kadib markuu u wareegay Roma وكان naadi انتقاله Roma markuu u wareegay وسجل هدفا dhig umuu dhigin ذلك لم يحتج waxaan uu إلى bilaabay inuu goolkii ugu qurux badanaa ka xareeyaba markaas يلعب لصالحه isla markaana kumuu dabaaldegin لاعب أمامي kuwaas oo ixtiraamayo taageerayaasha waayo naadigaasi beri hore uu ciyaari jiray حيث سجل uu ka xishooday inuu ku dabaaldego isla markaana kulan dambe ay kulmeen 2 gool buu ka xareeyay يوم كان الأسوأ dhacdo aan la ilaawi karin Arjen Robben iyo Holland bay kubaddu ay diiday koobkii adduunka South Africa lagu dhigay kaas العالم ahaa بقيادة مايسترو منتصر kubaddu way diiday way ka khasaartay hal iyo eber bay ku dhamaatay ciyaartaasi waanu Holland maalinta kubaddu way ka jeeday qadarka iyo qoraalkaas ahaa dhowr fursadood macaan buu ka helay laakiin waa uu geli weyday wax kastana way sameeyeen way u geli weyday بعد مرور 4 أعوام أعطى القدر هولندا فرصة لأخذ الثأر وآمنت هولندا بالقدر في هذا اليوم حيث تمكنت من هزيمة إسبانيا في ظل زعامة 4 sano kadib bay Holland ay iskulmeen waanay ka aarsatay 4 sano kadib 5 eber ku dhamaatay ciyaartaasi kii labaad iyo kii shanaad ba waxa xareeyay Arjen Robben Holland waxaad moodaysay inay sugisay kulankaas baad moodaysay kamanay murugsanayn guuldaradii ka gaadhay maalintaas waayo waxay ogayiin inay Isbaanishka ay ka badin karayaan mar walba بعدما خرج رئيس نادي مارسيليا للرد على من يسألون هل تم التعاقد مع رياض محرز فكان الرد naadi Marseille madaxdoodii baa la weydiiyay lagu yiri Malaysia Riyad Mahrez mayburi waayo laanahu kuma wanaagsana in ciyaartooy ma arka buri Arsene Wenger saasu kale uu yiri waayo wuxuu yiri shirkiisu ma caawinayo ciyaartooy ma qalmo laakiin wuxuu kaga badiyay markii uu qaatay magaciisii la sheegay maalin axada Grosvenor funduq la yiraahdo hotel أفضل كي يقول أحسن عيارتي يقول أحسن الليج إنجليزي يقول أحسن الدنيا تاسو قاطو أيو كده قاضي مقعيف ربضن أو هرو رئيس قاتين وظلميين لكن وكأرصدي مركا شكرا إمكان صورنا بارتك أدرس وريانكي أتلتيكو بلباو ayuu joogay 2008 kadib waxa Valencia la wareegtay 2010 4 milyan oo euro bay kala siisteen si fiican uu shaqeeyay 18 gool buu u xareeyay Valencia muusimkii labaad ama xilli ciyaareedkii labaad Adores baa la heshiiyay Jonas Oliveira ciyaartoy Brazil ay Valencia la heshiisay beachka ayuu galay dadka taxdiyaadka beachka ayuu Chelsea ku ahaa in badan halka labaad buu soo gali jiray Adores wiilaa ana Emery tababaraha khiyaarka saddexaad ayuu ahaa soldada meeshii waliba soo galay isla markaana xilka saddexaad buu isaga u ahaa wuxuu go'aansaday inuu ku noqdo Atletico Bilbao waxa marar fara badan oo la wareystay inuu xiriir waan ka xumayday dekada aan ku jiro wuxuu go'aansaday inuu ka aarsado inuu ku noqdo Atletico Bilbao 7 goolna waa ka xareeyay markaana laakiin goolkii ugu qaalisanaa wuxuu ahaa goolkii uu ka xareeyay Europa koobka la yiraahdo Isbaanishka laga dhigo ayuu ka xareeyay goolkaas ka reebay koobka waxaanu tusay inay qalad galeen Valencia kiyo haddana 35 jir ah 30 goolna uu xareeyay markaa kadib 20 ciyaarood kadib tanna waa Argos kale waa Diego Alberto Morito
inter milan buu ciyaari jireen ayuu odhan jireen oo naanistiisii amiir baa la odhan jiray ka war waxay odhan jireen baaldiga dahabka ah yani waxaa la siiyaa ciyaartooyga ugu liita ayaa la siiyaa hadduu soo baxo ninkaasi waana kii ugu horreeyey jaa-isada ninka qaata ayuu ahaa kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyey ee argentiniga ah 2011 inter milan wuxuu go'aansaday inuu markaaba ciqaabo wax allaala wixii waxaa ku tilmaamayey wax allaala wixii koobaba iyo xidiga iyo biladaba u qaatay weeraryahankii ugu wanaagsanaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa 2012 amiirkii 4 gool buu xareeyey ciyaar waali ah 4 gool waana hattrick waa super hattrick ugu horreeyay Talyaaniga la super hattrick liga Talyaaniga laga dhaliyo 4 gool ayuu ku xigay Ibrahimovic Sultanka Ibrahimovic ayuu ku xigay Milito waa ka 3 koob la qaaday laamida kamid Talyaaniga magaciisa lagu wada Diego Alberto Melato Real Madrid baa la kulmay Argos ayuu doonay inuu sameeyo laakiin wuxuu la kulmay 4 baa loo dhibay Diros Borussia Dortmund baa u dhibtay kadib uu ka haray homekii awaygiiba way ku adkaatay aggregate bay ku hareen 3 ayuu ka gaarsaday mar dambe kulmeen